yaan la idin cabsi gelin balaayaa dhacayso taaca reer qansaxa qoryo la soo booda dalka waa la dumin rabaa waa la kala tegi rabaa nin walba tuuladiisa u noqonaa waxa nasiib darrada ah in nin ummadda inuu hogaamiye rabo waxa uu ku hadaaqo in ay waxaa noqdaan waa nasiib darro waa nasiib darrooyinka aan Soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka uga nooshahay waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caamin wa antum bikhair waxaan u ducaynaynaa dhammaan dadka inta xanuunsan waxaan u ducaynaynaa in ilaahay amuurahooda fududeeyo dhammaan inta xaajaadka baahiyaha qaba waxaan u ducaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ilaahay culaysyada u fududeeyo in ilaahay nabad iyo amni iyo naxariistiisa uu ku manaysto intaa kadib walaalayaal maanta waa maalin weyn waxyaabihii caadiga ahayd aan iskula dardaarmi jirnay ma iloobayno oo ahayday in la isku naxariisto in walaalka gacantiisu gaaban tahay in la kaalmeeyo in ilmaha deriska ah ay la ciidaan ilmahaaga oo ilmahaaga siday u faraxsan yihiin kuwa deriskana ay u faraxsanaadaan in la garab istaago dadka maxaanku idhahdaaye danta yar si looga farxiyo maalintan farxadda weyn ah oo maxaanku idhahdaaye ummadaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan la'a farxadda intaas kadib walaalayaal ummadda Soomaaliyeed sidii aan mar walba aan ku celceli jirnay waddo dheer oo aad iyo aad u dhibadan sannado badanna soo qaadatay ayay soo martay hayaankaasi weli waa socdaa gaabis waa nagu jiraa waa gaabinaynaa laakiin waa soconnaa maalintii jamhuuriyadda saddexaad la soo aasaasay 2000 taariikhdu markay ahayd ilaa iyo maanta Soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa horumar iyo horay ayay u sii tallaabsanaysay u socotay dabcan ummad waaye dabcan hoggaanka talinaayo waa mid bani aadam ah khaladaadkiisa leh gaabiskiisa leh laakiin muhiim waxa ah in la socday oo aan hal meel lagu nagaanin waxaan rabnaa socodkaasi inuu sii jiro in la sii dheereeyo in maxaanku idhaahdaayey socodkaasi socod nabadeed uu noqdo socod dowladnimo uu noqdo socod amni dalku uu ku helo inuu noqdo waxaan rabnaa waxyaabana waa Soomaaliya mushkiladda haystaa mushkilad siyaasadeed waaye siyaasadda waaye siyaasadda wax walba inaanan siyaasadayn ayaana laga rabaa wax walba in aan maxaanku idhaahdaayey aanaan siyaasadaynaana laga rabaa dhaqaalaha aanaan siyaasadayn amniga aanaan siyaasadayn isku duubnaanta iyo wadajirka ummadda inaan siyaasadayn siyaasaddana sideedaba mustaqbalka iyo sidii loo qurxi lahaa ayay ka hadashaa ninkii mustaqbalka ra'yi ka qaba ee sida loo soconayo loo oolayo berri ra'yi ka bixin kara waa kaas kan siyaasi waaye la dhihi karo laakiin ninkii aan berri aan ra'yi ka qabin Soomaaliya siday u ekaanayso dadka Soomaaliyeed hiigsiga ay tilaabsanayaan berri aanan dadka u tilmaami karin tusi karin kala doodi karin ku hagaaji karin ee ku mashquulsan shalay iyo wixii dhacay iyo shalay wixii naga khaldamay iyo shalay wixii aan weynay iyo shalay wixii naga gaabtay hadda shalay waa shalay ma noo soo noqonayso yaan la idin cabsi gelin balaayaa dhacayso taaca reer qansaxa qoryo la soo booda dalka waa la dumin rabaa waa la kala tegi rabaa nin walba tuuladiisa u noqonaa waxa nasiib darrada ah in nin ummadda inuu hogaamiye rabo waxa uu ku hadaaqo in ay waxaa noqdaan waa nasiib darro waa nasiib darrooyinka aan